hagaag daawadayaal waxaan ku suganahay mid ka mid ah shaneebooyinka lagu daawado filimaanta Hollywoodka ee la yiraahdo AMC oo ku taala magaalada St Paul ee caasimadda gobolka Minnesota. waxaan maanta isla eegi doonaa filimaanta Hollywoodka kuwooga toddobaadkan lacagta ugu badan sameeyay. filimka la yiraahdo Superman ayaa isagu kaalinta ugu horeysa ku jira toddobaadkan, waxa uu sameeyay lacag dhan 8.50 milyan oo dollar. halka uu labadii toddobaad ee uu shaneebada saarnaana uu sameeyay lacag dhan 272 milyan oo dollar. kaalinta labaad waxaa ku jira filimka isagu ka hadla ama ku saabsan dinosaurada oo la yiraahdo Jurassic World Rebirth. isaguna waxa uu toddobaadkan sameeyay 24 milyan, halka uu 3 wiig oo uu shaneebooyinka saarnaa guud ahaan dalka Mareykankana uu sameeyay lacag dhan 292 milyan oo dollar. filimka la yiraahdo I Know What You Did Last Summer isaguna waxa uu toddobaadkan sameeyay 13 milyan, halka isagu waxa uu filimkan uu soo baxay toddobaadkan waxaana guud ahaan uu sameeyay lacag dhan 20 milyan oo dollar. filimka la yiraahdo Smurfs oo isaguna toddobaadkan soo baxay waxa uu toddobaadkan sameeyay 11 milyan, isugeyna waxa uu sameeyay 29 milyan oo dollar. filimka isagu tartanka baabuurta ku saabsan tartanka caanka ee la yiraahdo F1 ama Formula 1 waxa uu toddobaadkani sameeyay lacag gaaraysa 9.9 milyan oo dollar, halka 4 wiig oo uu shaneebada saarnaa uu sameeyay lacag dhan 161 milyan oo dollar. ugu dambeyntiina filimka la yiraahdo How to Train Your Dragon isaguna waxa uu sameeyay lacag gaar toddobaadkan waxa uu sameeyay lacag gaaraysa 5.4 milyan, halka isugeyn 6 wiig oo shaneebooyinka Mareykanka uu saarnaana uu sameeyay lacag gaaraysa 205 milyan oo dollarka Mareykanka ah. inkasta oo ay jiraan shirkado iyagu online-ka filimaanta ku sameeya sida Netflix, Hulu iyo Amazon Prime iyo Apple iyo shirkado fara badan sida Paramount oo adigoo iska jooga aad filimaanta cusub iyagu ay sameeyaan aad daawan karto, haddana filimaanta Hollywoodka ee lagu soo bandhigo shaneebooyinka waxa ay weli ku jiraan kaalinta ugu horeysa, waana isha keliya ee ay filimaanta Hollywoodku ay lacagta ka sameeyaan oo dhaqan ahaan dadka Mareykanku ay filimaanta shaneebooyinka ku daawan jireen boqolkii sannadood ee ugu dambeeyay. shirkaddan AMC oo American Movie Company loo soo gaabiyana ay tahay shirkadaha ugu waaweyn ee iyagu maamula shaneebooyinka. taasi waxa ay meesha ka saaraysaa oo daros ay sanado ka hor ay odoroseen dadka iyagu khibrada iyagu ku xeel dheer xagga filimaanta oo sheegeen in shaneebooyinku ay lumin doonaan doorka ay iyagu leeyihiin, isla markaana ay kaalintaasi buuxin doonaan shirkadahaasi aan horey u sheegnay iyagu online-ka wax ku baabiya. laakiin weli waxa cad in ay dadweynaha Mareykanku ay jecel yihiin in filimaanta cusub ee Hollywoodka ay ku fiirsadaan shaneebooyinka. xawaladeer telefishinka STN St Paul, Minnesota.